kulankan oo ku saabsanaa ka qaybgalka haweenka arrimaha siyaasadda ay soo qabaqaabisay ururka midnimo network oo kaashanaysa mashruuca ma sugi karno ayaa lagu qabtay magaalada Garowe. Kulankan waxaa ka qaybgalay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda, madaxda dhaqanka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Xogayaha ururka midnimo network Muxibo Maxamuud Nuur ayaa ka warbixisay ujeedka kulanka. shirkan quruxda badan oo aan fadhino waxaa soo abaabushay dalada midnimo women network oo ah dalad ay ku midaysan yihiin ilaa 35 organization oo women led organizations ah oo ka jira Puntland guud ahaan fadhigeeduna uu yahay Garowe. daladu waxay jirtaa muddo hal sano ah intaasna waxay ka shaqeynaysay isku xirka iyo isku dubaridka maxaan ku dhahay ururada haweenka oo muddo dheer soo shaqeynayay isla markaasna howlo badan oo muhiim ah bulshada u haya. maantana shirkan aan fadhino ujeedkiisu wuxuu yahay qaybgalka arrimaha siyaasadda ee dhinaca haweenka iyo doorka haweenku ka qaadan karaan iyo sida ay daladu rabto inay uga shaqeyso oo ay ka mid tahay dadaalada iyo waxyaabaha loo aasaasay oo isugu maxaan ku dhahay keenay. madaxda dhaqanka iyo mas'uuliyiintii ka qaybgalay ayaa dhankooda xusay muhiimadda haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda. gabdhuhu shaqada socota ciddii shaqada socota ka shaqaystaba wixii meesha yaalla dhariga qofkii dhinac taagan baa lafta kala baxa. gabdhuhu hadday guryaha joogaan sida hadda la sheegay waxa kala baxaya qofka ag taagan. gabadhii maqani meesha kama shaqaynayso konsul ma noqonayso, gabadhii aan xisbiga ka qaybgalin ma noqonayso, gabadhii aan adeega qaban ma maxkamadda kama noqonayso. gabdhaha shaqaa laga rabaa. gacantiinaad ku haysataan gabdho badan oo fahmo hadda ay sheegayeen waa jireen. dadka ragga iyo dumarka badan haddii la codeynayana horta waa inagu cusub yahay waxa kan dimuqraadiyiinta la yiraahdo doorashooyinka. qof soo arkay waxaan u maleynayaa anigaa ka jira. aniguna maalintiinoo ku dambeysay ma codeyn laakiin caqli badan baan lahaa oo waan shaqaynayaa. hadday hadda inoo timi marka wacyigelintiisina waa socotaa, tababaradiina waa socdaan, laakiin waxaa laydinka rabaa hadda iyaba istiraadaan ragga idinku direen haddaad u badantiin inta codaynaysa idinku haddaysa soo sharaxaad isu codayseen. runtii maanta waxaa weeye maalin taariikhi ah oo aad loogu farxo. midnimo network sanad ka hor bay ahayd markii la sameeyey 35 urur oo ka mid ah gabdhaha u shaqeeya arrimaha haweenka horumarintooda iyo tacdiyada ka dhanka ah jinsiga oo ku midoobeen. maantana waxaan u fadhinaa shirar intaan ka badan waxaan u soo fadhin jirnay tababaro iyo kor u qaadis iyo wacyigelin iyo sidii iyaga loo gaadhgarayn lahaa. laakiin waxaa wax lagu farxa ah oo aad loogu farxa ah maanta inaan u fadhino inay midnimo iyadii ay sameynayso presentation saak shaqadii ugu horeysay ee qabanayso ka wasaarad ahaan iyo ka agaasin ahaanba daladan maalintii la asaasay ilaa maanta waan garab taagnahay. sababtaan u garab taagnahayna waxay ka tahay gabar kastoo Soomaaliyeed iyo gabar kastoo reer Puntland hadafka iyo guusha iyo horumarka ay gaarto waa hadafka iyo guusha iyo horumarka aan ku farxayno. meel walba dadkii waa diyaarsan yihiin waxaana loo diyaarsan yahay geediga loo socdo. waxaana muhiim ah sanad walba iyo mar walbaba in laga kaco meeshii la joogay hore loo sii socdo. waxaan aad ugu mahadcelinayaa midnimo dalada oo inoo samaysay inaan maanta munaasabadaan isugu nimaadno ee uga wada hadallo siyaasadda iyo haweenka. dadini waa inaad tayo ku darsataan aad maanta soo baxdaan oo la arko gabdho fara badan oo ka soo baxay golayaasha deegaanka intaan golayaasha kale loo gudbin. hadda hal urur oo gabdho leeyihiin ma jiro. ururada tartamaya xisbiyada raba inay u gudbaan hal urur oo gabdho leeyihiin ma jiro. gabar gudoomiye ka tahay kulli rag baa gudoomiyaalka ah. maadaama ay rag dhamaantood gudoomiyaalka yihiin hadda in lagula xisaabtamo kollay dhacday suura gali weyda inaan urur furtaan haweenku iyo ururka haweenka ay ma taqana maasharatu ku soo bixi lahaayeen laba urur iyo saddex urur inay leeyihiin baa la rabay hogaaminayaan laba iyo saddex inay hogaaminayaan baa la rabay in iyaga laga bariyo qaabka dhismaha la rabay in iyaga lala gorgortamaa la rabay in iyaga la yiraahdo maxaad intee wasiir baa noo ogashiin rag yiraahdo baa la rabay ma ogtahay
laakiin hadda taas mar hadday dhici weyday waa inay gabdhuhu yidhaahdaan ururkay soo saarayaan mandatekiisa akhristaan micnihiisa fahmaan oo u ogol haweenka wax u ogol oo mujtamaca hogaamintiisa rag iyo dumarba wax u ogol oo isleeyin kaasa cadaalad wax ku dhaqaya inta u bataan oo gabdhaha ku jiro codkooda ku soo saar intee baa haween ku jira haween ma tahay looma rabo boqolaal haween baa intaan soo saarnay meel ay ka bixeen aan weynay haween waxaa la rabaa garanaysa ciddii dirsatay diin leh iimaan leh aqoon leh islaam ah dalkeeda iyo dadkeeda garanaysa waxa u daran madaxa mashruuca ma sugi karno Ifraax Cabdinuur wasiir ku-xigeenka hore wasaaradda haweenka Farxiye Yuusuf la taliya madaxweynaha arrimaha haweenka Luul Maxamed Warsame ayaa kulanka ka hadlay waxaan rabnaa maadaama aan dhinacaasba active ka nahay dhinacan kalena active ka noqono in aan wax kasta oo keeni kara inaan inaga horumar ku gaarayno ama aan inaga kaga qayb qaadanayno arrimaha masiiriga ee dalka iyo talooyinkooda in aan garab istaagno nidaamka dimuqraadiyaddu nidaam gabar kasta oo han leh gabar kasta oo aqoon leh gabar kasta oo karti leh ay ku soo bixi karto wax ku noqon karto macno ku yeelan karto dalkeeda ku contribute gareyn karto weeye runtii waa shaqo hawl baa noo taal adag miyi iyo magaalo leh aan runtii aan yarayn ee caqabadeeda leh wad arkaysaan kootadii la leeyahay hadda hala furo dantayaduna kuma jirto in la furo danteenaas waa awalan way kala horeysaa bahashe inaan u istaagno qaabkii aan u hor istaagi lahayn inaan kootadaas naloo furino ay noo xiraato haddii madaxweyne nooga xiran tahay haddii ururo nooga xiran tahay haddii baarlamaan uu nooga xiran yahay midnimo waxaan ku boorinayaa inay doorkaas qaadato oo u istaagto oo habeen iyo maalinba loo kaco sababtoo tahay haddii riyadeennu ma soconayso kanka aynu maanta bilownay halkaas aynu ka wadaynaa inagoo ka duulayna inaan mas'uuliyadaha kulligood gacanta ku wada qabanno oo inaan midna ina ka dayacmin insha Allah hooyadu mas'uuliyad badan bay qaadi kartaa adoo ilmaha tuushinka u dhigaya mid baad xambaarsan tahay cuntadana waad karinaysaa waa wax ilaahay aqligaas uu inoo qaybshay oo aan raggu ka bixi karin kii kugu xaarayay kii iskuulka jiray kii quraacda ka rabay kii halkan ku fadhiyo xanuunsanaa kulligood waxa la rabaa gacanta inaad saa ugu wada hayso haddana aad bulshada iyo ummadda u adeegto oo caqligaaga iyo muruqaaga iyo maskaxdaada iyo haddaad xoolo leedahay xoolahaaga kulli inaad dadka wax ka gelisaa la rabaa Maxamuud Faysal warbaahin dawladda Garowe.